kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida xubnaha beesha caalamka oo maanta kulamo kala duwan la qaatay mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya oo fadhigoodu uu yahay magaalada Muqdisho duqeymo culus oo laga fuliyay dawlad goboleedka Hirshabelle iyo qasaare xoogan oo lagu gaarsiiyay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya oo faahfaahin kala duwan ka bixisay duqeymo ka dhacay dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari haddii aynu ku bilowno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa saacadii ugu dambeeyay kulamo kala duwan ku yeelanayay xubnaha mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale safiirada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho waxa xubnahani horboodaya madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Xuseen Roble Xasan Cali Khayr iyo sidoo kale Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo mas'uuliyiin kale ayaana sidoo kale horkacay oo kamid yahay madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan mas'uuliyiintan ayaana beesha caalamka waxay la wadaageen xog ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyagoona sidoo kale faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay kulamadii saacadii ugu dambeeyay ee ku yeelanayeen magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha ay markaasi diiradda ku saarayeen xubnaha beesha caalamka ayayna sidoo kale waxay la wadaageen caqabadaha xilligan ka jira waddanka iyagoona sidoo kale sheegeen marxaladda uu haatan uu dalku ku sugan yahay aysan ahayn mid markaasi lagu fiirsan karo mucaaradku waxay sidoo kale ay beesha caalamka ay markaasi ay la wadaageen inay si degdeg ah u soo farageliso arrimaha siyaasadeed ee dalka sidoo kale aysan ahayn mid aanan markaasi lagu fiirsan karin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaana hore waxa uu sheegay in uusan dooneynin in dalka ay qori caaradiis ay markaasi ay wax ku raadiyaan balse aysan diyaar u ahayn in ay markaasi qalalaase ay abuuraan ayna diyaar u yihiin wada hadal in markaasi lagu dhameeyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka mucaaradka ayaana sidoo kale waxa ay dalbadeen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu si degdeg ah oo wax badan ugu bedelo arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo tallaabooyinka dheeraadka uu qaaday laba qodob ayaana sidoo kale ugu waaweyn ee mucaaradku ay la wadaageen maanta beesha caalamka labadaas qodob ayaana waxay kala yihiin arrimaha doorashooyinka ee waddanka iyo sidoo kale wax ka bedelka arrimaha dastuurka ee waddanka waxa ay sheegeen in labadaas qodob ay tahay in uu ka tanaasulo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kalena madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana war qoraal maanta soo saaray ayaa waxa uu soo dhaweeyay gogashii maalinnimadii shalay ahayd uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo in xaaladda siyaasadeed ee waddanka ay tahay in wada hadal lagu dhameeyo sidoo kalena arrimaha jira ay tahay mid markaasi miiska wada hadalka la isugu yimaado oo ay tahay in ay mucaaradku ay kaalintooda ay qaataan sidoo kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tanaasul badan uu sameeyo waxa uu sheegay madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in arrimaha ka jira waddanka aysan ahayn mid markaasi lagu daawan karo sida uu hadalka u dhigay waxa sidoo kale Farmaajo uu sheegay in intay maqan yihiin madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland aysan ahayn markaasi mid lagu dhameystirayo madasha wada tashiga qaranka waxaana uu sidoo kale uu sheegay in ay tahay in ugu horeyn ee markaasi wada hadal ay ku dhameeyaan tallaabooyinka qaarkood ay jiraan waxa sidoo kale uu ku baaqay Farmaajo in dib loo soo celiyo shirkii golaha wada tashiga qaranka sidoo kalena arrimaha madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland ay tahay in iyagana dhankooda ay doorkooda ay qaataan Farmaajo ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in dalka xilligan uu marayo marxalad xasaasi oo kala guur sidoo kalena ay tahay mid aan lagu daawan karin oo ay muhiim ay tahay in miiska wada hadalka la isugu yimaado oo arrimaha jiraahi markaasi laga wada hadlo madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu si aad ah u soo dhaweynayo go'aanka uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriirta in arrimaha taagan wada hadal lagu dhameeyo waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu baaqayo in uu doorkiisa u qaato sidoo kalena odaytinimo oo markaasi uu ku wajaho maadaama dalka xilligan uu marayo arrimo xasaasi ah iyo sidoo kale galguur siyaasadeed madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagoo hore waxa markaasi loogu xusuustaa tallaabooyinkii uu qaaday taasoo la xiriirtay muddo kordhintii hore u sameysay taasoo mucaaradku ay ku diideen xilligaas oo mucaaradku ahaa
madaxweynaha haatan talada haya ee xasan sheekh maxamuud farmaajo ayaana xilligaasi waxa uu la kulmay qalalaaso siyaasadeed iyo sidoo kale cadaadis kaga imaanayay mucaaradka dowladda federaalk Soomaaliya tallaabadaas ayaana sidoo kale waxay ahayd tallaabo aanan u adeegaynin midnimada dalka sidoo hore u sheegay madaxweynaha hore ee maxamed cabdullaahi farmaajo ayaana sidoo kale waxa uu sheegay inuu dhankiisa uu markaasi u soo dhaweynayo gogosha uu ku baaqay inkastoo markaasi mucaaradka dowladda federaalk Soomaaliya ay maalmo ka hor cadaadis ay ku saarayeen farmaajo inuu ka mid noqdo xubnaha siyaasadeed ee dalka hase yeeshee farmaajo waa uu iska diiday daahir maxamuud geelle oo mar hadlaya isagana waxa uu sheegay in uu markaasi si aadaha uu kaga walaacsan yahay tallaabada siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale in madaxweyne farmaajo isaga uu markaasi uu ka beeri karo mucaaradka sidoo kalena uu diidi karo qudhiisa tallaabadan oo dhan ayaana sidoo kale waxay la xiriirtaa xilli madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalinimadii shalay ahayd uu ku dhawaaqay gogol wada tashi ayna tahay in miiska wada hadalka la isugu yimaado xasan sheekh ayaa waxa uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyay oo kulamo gaargaar ah uu la yeelanayo xubnaha mucaaradka ee dowladda federaalk Soomaaliya waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu la hadlo mucaaradka dowladda federaalk Soomaaliya sidoo kalena uu doonayo in arrimaha jiraahi wada hadal lagu dhameeyo mucaaradka ayaana sidoo kale maalmo ka hor waxa ay sheegeen in kulamada markaasi golaha wada tashiga qaranka oo ay ka maqan yihiin madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland aysan ahayn mid markaasi loo dhan yahay muhiimna ay tahay in arrimaha jiraahi si degdeg ah miiska wada hadalka in la isugu yimaado oo laga wada hadlo si masiirka dalka loo badbaadiyo isku soo wada duuduubo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaana waxay tahay mid aad u cakiran iyadoona dhowaan la filayo in ay kulamo gaargaar ah ay qaataan mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya markan haddii aynu eegno degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waa berigii hore ee maanta waxaa ka dhacay duqeymo culus oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka duqeymahan ayaana waxaa lala beegsaday xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ilaa dadka deegaanka ayaana waxay warbaahintu xaqiijiyeen in khasaare xooggan lagu gaarsiiyey duqeyntan xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab sidoo kalena ay mar qura ay arkeen holac iyo uuro cirka qabsanaya taasoo ay ku tilmaameen inay tahay mid ka mid ah duqeymihii ugu cuslaa oo waayadani ka dhaca deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dadka deegaanku waxay sheegeen in ay u malaynayaan in duqeyntani lala beegsaday gaadiid dagaal oo ay wateen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaana muddooyinkii ugu dambeeyay waxay sii laba jibaareen duqeymaha kala duwan oo ay ka fulinayaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dowladda ayaana mar kale waxay doonaysaa inay dib ula wareegto gacan ku haynta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo muddo ka badan bil ay fariisimo kala duwan ay ku leeyihiin xubno ka tirsan kooxda al-shabaab taliyihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Saal Cabdullaahi Cumar ayaa iyaga maalmo ka hor waxay booqdeen xuduudda wadaagaan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyagoona ku dhawaaday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe Sanbalolshe ayaana sidoo kale waxaa lagu xasuustaa kaalintiisa ku aadanayd dib u abaabulidda dadka deegaanka ee dagaalka adag la galay kooxda al-shabaab hase yeeshee maalinimadii shalay ahayd ayaa xilka laga qaaday waxaana lagu bedelay agaasimihii hore oo dib loo soo celiyay Mahad Maxamed Salaad ayaana muddo ka badan 2 sano xilkani hore u hayay inkastoo bishii Abriil ee sanadkii 2024 lagu bedelay Sanbalolshe hase yeeshee mar kale ayaana dib loo soo celiyay Mahad Salaad ayaana sidoo kale waxaa lagu xasuustaa kaalintiisa markaasi ku aadanayd in uu wax badan uu ka qabtay xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho taasi oo markaasi wax badan uu ka bedelay isagoona joojiyay qaraxyadii kooxda al-shabaab ay ka fulin jireen gudaha degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho waxaa la sheegay in Mahad Salaad uu ciidamo fara badan oo dhar cad u qoray taasi uu sahashay in amniga uu wax badan uu ka bedelo hase yeeshee taliyihii xilka laga qaaday Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa isagana waxa uu ku wanaagsanaa dhinaca furimaha hore ee dagaalka oo dhowr jeer oo kala duwan u booqday waxaana uu tagay deegaano ka tirsan gobolada shabeellada dhexe iyo sidoo kale Hiiraan halkaas oo abaabulo kala duwan oo markaasi uu ka sameeyay Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadana waxay sheegtay in duqeymo culus laga fuliyay dhulka buuraleyda ee gobolka Bari meel qiyaastii 70 kiiloomitir u jirta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu baabiyay fariisimo kala duwan oo ay lahaayeen kooxda Daacish wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka ee Soomaaliya
daawud aweys jaamac ayaana waxa uu sheegay in duqeyntan ay iska kaashadeen taliska ciidamada Mareykanka ee Africom iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay jaamac in dowladdu ay guulo waaweyn ay ka gaartay duqeyntaasi sidoo kalena gadaal ay ka soo sheegi doonto duqeymaha kala duwan Africom ayaana dhowr jeer oo kala duwan waxay duqeymo culus ay ka fulisay dhulka buuraleyda ee gobolka Bare taas oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyay xubnaha ka tirsan kooxda Daesh waa mid ka mid ah duqeymo ugu cuslaa oo laga fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Bare iyadoona sidoo kale la soo warinayo in markaasi lagu burburiyay fariisimo kala duwan oo ay lahaayeen kooxda Daesh war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaana waxa lagu sheegay in 5 bilood ugu dambeeyay ee sanadkan markaasi duqeymihii laga fuliyay Soomaaliya lagu dilay ka badan 100 xubnood oo isugu jira Daesh iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab sida ay markaasi taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ay sheegeen Africom ayaana waxay sheegeen in jahwareer siyaasadeed ay markaasi xilligan ay ka jirto dhinaca duqeymaha iyadoona dad rayid ah ay markaasi wax ku noqdeen duqeymihii kala duwanaa ay fuliyeen iyagoona sheegay in dib ay ka soo sheegi doonaan dadka shacabka ay la duqeeyay waxyaabaha ka soo kordhana halkan ay kala socon doontaan